2017 ayaa la bilaabay dhismaha masjidkan oo ka kooban 3 dabaq iyo barxad weyn waxaana qaab dhismeedka masjidkan uu yahay mid u eg masaajida waaweyn ee ka dhisan dalka Turkiga waxaana si gaar ah u shabahaa masjidka uu madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ka dhisay suuqa ugu weyn caasimadda wadanka Turkiga ee magaalada Ankara. dhismaha masjidkan oo socday 6 sano waxaa ku baxay dhismihiisa qarash gaaraya 12 milyan oo doolarka Mareykanka. masjidka Cali Jimcaale oo laga dhisay inta u dhaxaysa isgooska kiiloomitir 4 iyo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay qaybo loogu talagalay waxbarashada oo leh hooy, maqaaxi, supermarket iyo baakin weyn oo baabuurta jameecada loogu talagalay. masjidkan ayaa waxaa aabiis Cali Jimcaale u waqfay wiilkiisa Axmed Nuur علي جمعالي وملكيلها شركة إسقارسين تهرمود وحانا هالكي مر كتوكن كرا شانكون إشان بقول أوقف هالكي مر واحد استي مسجد كان شركة دا اسمها بروج هذا با انجينير كان استي مسجد كان انجينير محمد إبراهيم حسن أي شرحات كبحنية اسمها مسجد كان يقايبها أو ككوبين هاي مساجد كان أو مساجد وين ونككوبان سدح طبق ولغتو كذو qayb ka mid ana dumarka ay ku tukadaan qaybta hoose ee basementigana waa inta tan afaraad oo loogu talagalay macahad diini ah macahadkaas oo leh qaaco weyn oo wax lagu barto iyo galaasyo oo ardada xufaadka quraanka ah lagu barayo. masaajidka intaas uu ka kooban yahay iyo musqulo haraga oo labada dhinac ah iyo musqulaha dumarka oo dhinac leh oo ay ka soo galaan. masaajidka habka uu u dhisan yahay waa hab architect Uthmani ah oo sida ay u dhisan yihiin masaajidada Turkida ayuu u dhisan yahay. gudahiisa iyo dibadiisana waa marble dhagax la yiraahdo aad qaali u ah. gudaha iyo dibadaba uu samaysan yahay wuxuuna wataa shakl islaami ah oo thuraathi ah Usmaaniye ah oo leh qubooyin isdul saaran oo 3 qubo ka kooban. qubada weyn iyo qubooyinkii kale 4 qubo ah ee ku soo fariisanayso iyo qubooyin yar yar oo ku wareega oo loogu talagalay quruxda masaajidka. intaas waxaa dheer wuxuu leeyahay 2 manaarad oo aad u dheer oo 75 mitir ah ayuu leeyahay labada dhinac ku leeyahay. manaaradaha saytu ah manaaradihii masaajidadii Uthmaaniga la sameyn jiray oo calaamada u ahaa. marka masaajidka intaas saytu ayuu ka kooban yahay masaajid ahaan. masaajidka wuxuu leeyahay murfaqaad badan oo asaga la socda. waxaa ka mid ah saaxada weyn ee lagu tukado banaanka ah oo masaajidka uu leeyahay. masaajidka wuxuu kaloo leeyahay parking underground oo dhulka baabuurta hoostiisa la dhigto iyo qayb yar oo dusha ah oo qaadaysa ilaa 150 gaari qaadaysa ayuu leeyahay. masaajidka wuxuu kaloo leeyahay guriga imaamka oo ka kooban 4 qol iyo fadhi iyo guriga muadinka oo ka kooban 3 qol iyo fadhi iyo xafiis maamulka masaajidka uu leeyahay oo ka kooban 3 qol. intaas waxaa dheer inuu leeyahay supermarket oo dadka jimcaha ku soo tukada iyo dadka xaafadda degan ay ka adeegan karaan iyo restaurant wax laga cuno inuu leeyahay iyo meel cafeteria ah. masjidka Cali Jimcaale ayaa ah masjid loo dhisay qaab casri ah oo u dhameystiran yihiin dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin jameecada masjidka. maxamed cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.